waxay saadaalisay qaraxyadii New York oo waa ay dhaceen kacdoonkii guga carabta ayay xustay wuuna qabsoomay waxay saadaalisay Obama inuu xukunka ku soo dhawaan doono run baanay sheegtay 14 sanadood ka hor ayay geeriyootay saadaalimaheediina wali waa ay dhaboobayaan haddaba run ahaantii miyay ka digtay fayraska khatarta ee corona maxaanay ka tiri Trump iyo Butin waa falalowadii aragtay waxaan cidina arag Vangelia Bandifa Kostrova waxay ku caan tahay ayayda Vanga ama Baba Vanga sida loogu dhawaaqo luqadda Bulgaria waa Islaam Bulgarian ah oo ku dhalatay indhala'aan sanadii 1911 magaalo loo yaqaan Stroveka waxaanay raacsanayd waqtigaasi dawladda Cusmaaniyiinta haddase waxay daacad u tahay dawladda Macedonia ee bariga Yurub dagaalkii koowaad ee adduunka kadib Vanga waxay u hayaantay halka iyo Bulgaria gaar ahaan caasimadda Sofia waxaana caan ku ahayd yaraanteedii kartida ay u leedahay saadaalinta iyo qeexidda loolanada soo aadan inkastoo ay indhala'ayd haddana taasi waxay u horseeday magac ifaya iyo caanimo hor leh oo Yurub iyo caalamkaba ah markii ay kaga yaabsatay dunida in ay wax ka ogaatay masiibada qaraxii nuclearka ee Chernobyl sanadkii 1986 waxaanay ka sii warantay dhibaatadan 1980 balse dhacdadii ka dhigtay qof waliba inuu saadaalimaheeda rumaysto waxay ahayd furfurkii baaxadda weynaa ee ku yimi midowgii Sofiyeetiga waxaanay daahaan gaadhay falalowadan reer Bulgaria ilaa 85 sano noloshana waxay isaga tagtay 1996 balse waxay ka sii tagtay saadaalimo mustaqbaleed ka hor intaanay geeriyoon waxay ka sii warantay qaraxii New York ee mataanaha waxaanay hadalkeeda ku qeexday in weerarka lagu fulin doono 2 diyaaradood dhab ahaantiina waa ay dhacday 5 sano oo kaliya tan kadib waxa sidoo kale ugu caansanaa waxyaabihii ay ka hadashay ka hor dhimashadeeda in uu jagada Mareykanka ugu sarreysa ku soo dhawaan doono madaxweyne dubkiisu madow yahay waxaanay ahayd dhacdo la wada sugayay in ka badan 12 sanadood si ay u rumowdo waana arintii magaceeda ku soo celisay saaxadda sanadii 2011 waxay dadku dib u xasuusteen kadib kacdoonnadii carabta ee loogu magac daray guga carabta taasoo ay ka sii warantay dhammaan tafaasiisheeda kuna salaysay taariikhda iyo waqtiga waxa kale oo ku cusub falalowadan geeriyootay in ka badan rubuc qarniga waa saadaalimaheedii tirada badnaa ee ku jaangoonaa sanadda 2020 tan ugu muhiimsan waa xanuun daran oo caalamka oo dhan ku baahi doona kaasoo dadka badiba ay arkeen fayraska khatarta ee corona oo bilaabay inuu si xawli ah qaaradaha ugu kala gudbo waxa kale oo ay sheegtay in 2020 ay qiimo dhici doonto adeegsiga lacagta dollarka shiinuhuna waa adduunka ku hogaamin doona dhaqaale iyo ciidanba iyadoo xustay in xanuun khatar ah uu ku dhici doono madaxweynaha Mareykanka iyo isku day guuleysta oo uu ku khaarijin doono mid ka mid ah shaqaalaha aqalka Kremlin madaxweynaha Ruushka Vladimir Butin aragtideeda ku aadan mustaqbalka dunidana waxay tibaaxday in dhul badan uu qorqoomi doono kadib dagaal ku yimaada cirifyada koonfureed iyo kan waqooyiba sanadda 2032 iyo qaleyl soo wajihi doona dunida sanadda 2170 haddaba daawade miyay run sheegeen faaliyayaashu xataa haddii ay been sheegeen